Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde ayaa maanta waxa uu ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada London ee waddanka Britain oo dhowrkii cisho ee lasoo dhaafay uu ku jiray. Allaha u naxariistay Nuur Cadde ayaa sanadkii 1937 waxa uu ku dhashay magaalada Muqdisho. Heerarkiisa waxbarashada ayuu ku soo qaatay dalka iyo dibaddiisa. Allaha u naxariistay Nuur Cadde waxa uu waxbarashadiisa aasaasiga ahayd ilaa iyo tiisi jaamacadda uu ku soo qaatay gudaha Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho. Jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ayuu ka baxay gaar ahaan kulliyadeeda sharciga. Allaha u naxariistay marxuum Nuur Cadde. Macadka sare ee booliska ayuu ku qaatay tababar la xiriiray booliska iyo howlihiisa. Sidoo kale Nuur Cadde ayaa soo qaatay tababaro kala duwan oo ku saabsan sharciyada dembiyada, ilaalinta canshuuraha iyo shuruucda caalamiga ah, iyo sidoo kale baarista canshuuraha iyo shuruucda kale ee caalamiga ee arrimaha canshuuraha. Allaha u naxariistay Nuur Cadde oo darajadiisa ciidan ay ahayd korneyl qiyaastii 1950 ayuu ku biiray ciidamada ilaalinta canshuuraha. Sanadkii 1965 ayuu ku biiray ciidanka booliska Soomaaliyeed oo jagooyin kala duwan uu ka soo qabtay. Waxa uu taliye ku-xigeen ka soo noqday qaybaha ciidanka, gaar ahaan qaybta siyaasadda, abaabulka iyo sidoo kale qaybta la shaqaynta xiriirka caalamiga ah ee Interpol. Sanadihii 1970 ilaa iyo 80 waxa uu sidoo kale madax ka soo noqday xafiiska tababarka iyo qorsheynta ee ciidanka booliska Soomaaliyeed. Intii uu ka tirsanaa ciidamada waxa uu tababaro kala duwan u aaday dalal ay ka mid yihiin Talyaaniga oo muddo sannado ah oo tababaro kala duwan ku soo qaadanayay. Sanadihii 1976 ilaa iyo 83 Nuur Cadde waxa uu soo ahaa madaxa qaybta tababarka iyo sidoo kale qorsheynta ee ciidanka booliska Soomaaliyeed. Sanadkii 1986 ayaa loo magacaabay ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda badbaadada, iyada oo uu markii dambena halkaas uu ka noqday xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda badbaadada kadib markii tababar 2 sano ah uu ku soo qaatay waddanka Talyaaniga laguna baranayay arrimaha la xiriira baarista canshuuraha iyo sharciyada caalamiga ah. 1990 ilaa 2007 waxa uu Nuur Cadde la shaqaynayay hay'adda Bisha Cas ee Soomaaliyeed, taas oo uu ka ahaa xogayaha guud ee hay'addaas inta aan loo magacaabin ra'iisul wasaaraha dalka. Sanadkii 2007 Nuur Cadde waxa uu madaxweynihii waqtigaas Allaha u naxariistay marxuum Cabdullaahi Yuusuf Axmed uu u magacaabay ra'iisul wasaarihii dowladdii ku meel gaarka ahayd ee xilligaas dalka ka talinaysay oo uu hayay xilkaas ilaa iyo sanadkii 2009. Allaha u naxariistay Nuur Cadde ayaa door muhiim ah ku lahaa heshiisiintii maxaakiimta Islaamiga garabkii Casmara iyo dowladdii ku meel gaarka ahayd ee xilligaas uu ka tirsanaa. Sanadkii 2009 ayaa waxaa ra'iisul wasaarihii waqtigaas Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake uu u magacaabay Allaha u naxariistay Nuur Cadde inuu noqdo safiirka Soomaaliya ee dalka Talyaaniga kadib kulan dhex maray labada dhinac. Allaha u naxariistay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde ayaa ka mid ahaa ra'iisul wasaarayaashii soo maray dalka, waxaana Nuur Cadde uu markaasi ahaa shakhsi in badan ka soo shaqeeyay siyaasadda Soomaaliya, waxaana uu soo qabtay xilal kala duwan waqtiyo kala duwanna waa uu ka soo shaqeeyay Soomaaliya, gaar ahaan xilliyo dalka ay ka jireen marxalado kala duwan. Ra'iisul wasaare Nuur Cadde oo ku geeriyooday da'da 80 ayaa warar soo baxaya waxa ay sheegayeen in toddobaadyadii la soo dhaafay isbitaal ku yaala waddanka Ingiriiska, gaar ahaan magaalada London oo kula xanuunsanaa caabuqa cudurka coronavirus oo dunida ku faafaya. Maxamed Cabdi Xasan Iidle, raadiyaha telefishinka Dalsan, magaalada Muqdisho.